qoyska uu madaxweyne xasan sheekh ka soo jeedo ama caruurtiisa iyo reerkiisa iyo xaaskiisa fariin iga gaarsiiyay ونيو دتك جبتة جبتو وين اللي عدا ما شبتان مغلي جري دتك جبتة وين كلا هران وين سقطان وحبي سو شاقانه ما رد ده لو رجع ودبيه إلى هاي درندور يقول عبادي وح إسقطة وح شانة يا ودمير له أو ضدني ماله أو على كعبس له أو إلى هيك بقى يدكم تجران مية إن أنت ير هنجريسين نلاش إن أنتينا ومش راهي المها سداد بلوت رين وجنيسة صدق سنواتكم مضطي محد يقول رياضي نلاش إن أنت يدا waxaan oran lahaa haday cid ku jirto goobta waxa lagu yaqaan way kala hadhaaye sida geedka ruuda ama dhirta geedka galoolka oo kale si kasto dusha damba suga fulo hoostu ka hulaaqaayo dhama sacad dhuxul cas oo ba hoosta mar walba dogobku hoostu ka nool yahay warnimo dad dungobeed la hadaatihiin oo cid idinku hadhay xaaskiisu haday isaga dhaanto ama inankiisii dheeraaya askarta u raaci jiray waxaan leeyahay ma taqaanaa niyo inta kala hadaan qofkiin un haydi ka soo dhex bixay inta yar iska soo daayay umusha ilmaha yarna iska nuujinaysa aad arkaysaan xukuumaddu inay tunjileecsatay ya dhiig cabiyadii ku dhiig cabay xaasaskooda nolosha ku ololiyay ayaa magaalada soconaya caafimaad qaba wax alaaliyo wax la yeeli jiray kuwii iyada uga afka xumaa madaxweynaha ee uga cayda badnaa يا بالابنمو يرير هبلنمو سوق ku joogo oo aan lagu dhici karin oo banaystay yaa u bixi kara marka nimayahow gunnimada inta ku kala hadaan qoysiyahow anigu aabihiin waxba oran maayo waayo intii wax la oran jiray uu dhaafay ina taayir iska soo daay ina taayir cid u kacda idin ka soo dhex baxdo oo dogobkii reerka ha noqoto reer xasan sheekh dogobkoodii hoosta ka noolaa noqota waa hal qodobkayga labaad waxa weeye labaadka Soomaaliyeed oo anagu dhadiga hadaanu nahay dhadiga Soomaaliyeed hadaanu nahay oo nayaal kitaabkan Quraanka ah anagu kabarka kuma aanan xareynin dimuqraadiyadda iyo federalismka iyo dawladaha nidaamkan ku dhisan iyo constitutionkan iyo sharcigan ay qorateen idinka idin kala xukumayda kala ilaaliyana anagu idin ma aanan qorin anagu ma aanan qorin dhadiganaa idinka qortay idinkuna annaguna ama kaasaan ugu dhaqaysan aad dhigateen oo xeer noogu dareysaan ilaaliya ama kitaabka quraanka bay nagu wada dhaqaysaa oo idinkana kiina wax kufsadana waa la rajbinaya kiina wax hadana gacanta gam laga siinaya xeer loo sameeyahay ilaahay hortiisa waa loo sameeyahay xeer loo sameeyahay kitaabka maxkamadda inoo geynaysa labada wax ka dhaxeeya ma jiraan haddii kale kitaabka halka ku xareysan baa u deynaysaano anaga xeerna ilaaliya noo sameynaysaa labada wax ka dhaxeeya ma jiro bini aadamka hadii nolosha lagu ciriiriyo oo diinta lagu ciriiriyo oo xeer ciqaabeed looga dhigo isagoo qura lagu karbaasho uu nacaa marka idinka daraadin cadaab u galimayno ma fahanteen gabdhaha Soomaaliyeedna waxa leeyahay ma taqaanaan ka bogta kitaabku idinka xeer ciqaabeedka la idinka dhigayo dalka ma lagu dhaqaa meesha aad joogto ma lagu dhaqaa iska daa kaase حتى كأيجو سمستين يحير كود يحير شرعية وضوحي كوقب أذيكم بيقب نديكم بيقبتان أذيكم بالغ حكمي كرا مركا واعي جا وهكرو كبرنا عندنا وحرب love you